video inaan soo duubo maxaan ku raahdaa 2 nin ayaa igu kalifa maantay aad baan u xanaaqsanahay sababta u xanaaqsanahay iyo nimankaas waxay ugu sameeyeen ayaan rabaa inaan idin wadaago niman kale maaha waa Daahir Cali Sow iyo Shiine Culey sida ogtihiin ba ayaantan wax balaayaan baraha bulshada ka socday oo xaaladda iska ogeeyeen dadka iyo waxyaabaha ay dadkaas ayaantan sameeyeen waxay rabaan ba ay wax sameeyaan anigu shaqadeedana ma ahani waxaan rabaa aniga dambiga iga galeenan focus gareena egas fanaanadii hore ee caanka ahayd qaaliladan ayaa weerar afka ku qaaday Daahir Cabdulle Cali Sow iyo waliba Shiine Culey iyadoo oo muuqaal ay iska soo duubtay ku sheegtay inay qaati ka taagan tahay labadaasi nin ee Facebook caanka ka waa sida ay sheegtay qaaliladan oo muuqaal ay iska soo duubtay soo dhigtay Facebook ayaa waxa ay sheegtay in ay qaati ka taagan tahay Daahir Cabdulle Cali Sow oo ay sheegtay in heesa uu horay u lahaa ay iska uu soo dhigay Facebook ama bartiisa YouTube oo horay ugu qaaday waxay ugu horreyn ku bilowday in ay qaati ka taagan tahay Daahir Cali Sow horay ayaan heesa ugu qaaday waana la shaqayn jiray inta ugu badan heesihiisa waan qaaday waana ku amaani jiray laakiin hadda fankii waan ka baxay ayay tiri qaaliladan oo muuqaal ay iska soo duubtay soo dhigtay barteeda Facebook waxay ugu sheegtay Daahir Cabdulle Cali Sow in heesa hore oo horay ugu qaaday uu hadda soo cusboonaysiiyay Facebookna uu soo geliyay YouTube iyadoo oo sheegtay in ay baqaati ka taagan tahay Daahir Cali Sow sidaana ay isku ogeyn markii aan ka baxayay bay tiri fanka waxa aan dhammaan bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in heesahayga ay iska tuuraan ama delete ay iska dhahaan waa sida ay sheegtay iyadoo oo shaaca ka qaaday in gabi ahaanba fanki ay ka baxday heesaheedana inta ku jirta YouTube-ka dadka Soomaaliyeed aysan dhageysan waxay ugu baaqday Daahir Cabdulle Cali Sow in heesta maanta uu soo geliyay uu ka saara Facebook iyo YouTube-ka iyadoo oo sheegtay in dhowr jeer ay telefoon u dirtay uuna u jawaabi waayay laakiin waxay ka codsatay in Daahir Cabdulle Cali Sow uu ixtiraamo hore ayaan la shaqayn jiray heesana waan u qaadi jiray waana amaani jiray laakiin hadda fanaanad ma ihi oo waxaan ahay marwo gurigeedii joogta ayay tiri qaaliladan oo soo dhigtay Facebook muuqaal iska soo duubtay waxay Daahir Cabdulle Cali Sow ugu baaqday inuu ixtiraamo oo ay tahay marwo la qabo oo guri joogta iyadoo oo sheegtay in aysan fanki mar horeba ay ka fadhiistay oo ay ka baxday waa sida ay sheegtay qaaliladan oo muuqaal ay iska soo duubtay soo dhigtay barteeda Facebook ay ku leedahay waxa ay sidoo kale weerar afka ku qaaday Shiine Culey oo ay sheegtay in uu comment uu soo qoray Facebook ama uu soo dhigay oo ay ku sheegtay in ay u adeegsay qaab cadeefad qabiil ay ku jirto waxa uu soo qoray tiri qabyaaladii ku qaaday kuma dhigto qaaliladanay anigana ma yihi qof qabyaalaysta markii hore aan Facebook ku jirin ma ahayn fanka aan ku jiray ma ahayn bay tiri qabyaalaysato haddana Shiine Culey waxay sheegtay in uu ku khaldan yahay ugu dambeyn waxay ugu baaqday labadaasi nin ee Daahir Cabdulle Cali Sow iyo Shiine Culey in ay ka waantoobaan ba sida ay sheegtay iyadoo oo sheegtay inay ka codsanayso in ay Daahir Cabdulle Cali Sow uu ka saaro dhammaan heesihiisa qaaliladan ayaa horraantii qaaliladan ayaa dabayaaqadii sanadkii 2020 ka baxday guud ahaan fankii iyadoo oo sheegtay inay soo gabagabaysay oo haddana ay u jeesatay bay tiri dhankaasi ganacsiga waa sida ay sheegtay qaaliladan oo fanka ka baxday waxay sheegtay in heesihii YouTube-ka ugu jiray dadka Soomaaliyeed ay iska tuuraan oo ay sheegtay inaysan dhageysan waa laga helayaa hadda heesa aan leeyahay bay tiri Facebook ama YouTube-ka laakiin ma badna oo waa wax views-koodu yar yahay waa sida ay sheegtay waxay sheegtay qaaliladan in dadka Soomaaliyeed ay ku baaqayso in heesaheeda aysan dhageysan laakiin hadda arrintan waxaa soo cusboonaysiiyay iyadoo oo fanaanka caanka ee Sharmabo iyo Daahir Cali Sow ay in dhaweydba isku haysteen baraha bulshada iyadoo oo sheegtay in Daahir Cali Sow uu ka faa'iideysanayo qalalaasaha ka tagan Facebook ee fanaaniinta ay ku hayaan